ahayn waa hawshooda ay bilaabeen iyagu mar hore guddi hoosaadka fanka iyo suugaanta riwaayad heeso wixii shirka loogu talagalayo waa hawlaha marka cali saaray saddexdaas guddi hoosaad waxay hoos yimaadaan raamka iyo wafaafinta iyo hoos guddiga ku xiga waxaa weeye guddiga xoghaynta guud xoghaynta guud oo SSDF iyo shirweyne iyo haddii soo dhaweyntu waa dad protocol iyo yaqaano iyo luuqadaha wax ka yaqaana shaqada jira yaqaanayo maaliyadii waa dad dhaqaano yaqaano farsamo iyo maamul dhaqaano yaqaana nabadgelyadu dabcan haddeed waa ragga xidigaha iyo ruuska way badnaa ha yeeshee maadaama aanu qolada sare ka warramo guddiga qabanqaabada guud waa national waxaa fiican inay isla ogaan maxaad absay guddoomiye ururka waaweyn laakiin golaha badbaadada qaranku wuxuu u magacaabay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada guud iyo madaxweyne waayo gurigaana lagu shirayaa gurigaana dib lagu shira dalkana lagu shirayana kolley nin innagayna ka mid inuu waxa weeye guddiga qabanqaabada madaxda horta markaad SSD qorshaysanaysaan maxamed absi dhankaas ayuu ku jiraa ma aqan haddii aad laba hawlood u yeelaysaan isku mar oo halkaasna u gelayo SSD u gelayo guddigaas laakiin waxaan qabaa kuwaas imaanayaan hawsha keligiisna wadi kareen inaad iyagu rakaxunyahayaan laakiin heer qaran baa lagu shaqeeya waxaa weeye hadda heer qaran inuu jiro meel lagu talagalay taas waxaa weeye waa guddiga qalqaabada guddiyadan kale waa local yani SSDF baa iskale oo shirkaan ka hadla xoghayn guud oo idinku waa samaysan kartaa wixii innaga locally maaragtay idinayna ka yeelayso xoghaynta guud SSDF kaliya la qashayso qabsanaysa shirkaa dooran xoghaynta guud shirkaa oday soddon iyo saddex gobol ka socdo toban iyo toban xisbiyeed dhaqankaas haddada marka wuxuu yihi afartankii warqad noo soo qora kharashkoodii way ka baxayeen waxba ma hawen ku heshiinayna ilaahay xaggiisa to give full support in this conference. Our needs are so many. So far, we haven't received one single penny from the outside world. So when it comes to the budget, and one of the most critical needs of this conference is the conference hall, capable of accommodating 1,200. The Djibouti government, some time back, inspired us, gave us some hope. They told us that they have contacted a French company which would prepare a prefabricated hall with all its gears and so on. But now Abdullahi had let the government just the day before yesterday, and he was told that this French company said that they can't do this on this limited time of November the 1st. So this is
quite a problem. On the other side, we have to host all these delegates. We need, we'll give you a copy of our estimate with all the details and so on, but we need hotel expenses, we need food expenses, we need all the gears for the secretariat, we need, we are concerned about the security side of the story. We have to take all due measures to assure security. We are concerned about the fact that our brothers in the northwest and Jose Aidid School in the south have not so far. ma jiraan Soomaali baa heshiisay 6 oo councilka dhistay Small individual factions that make up South National Federation Council are all agreed unanimously. labadaas arrimood ay sidii caafimaadka kaga yihiin markii walaalaha iyo Now that you have mentioned, there is great pleasure for us to work as host as my brothers. waxaad moodaa inaan macallimada aqeedka baritaanka waqtiga ilaaliyo Time is passing so fast, and at the same time, I haven't been able to get any help from outside. Certain families from other countries that initially had asked for having support, especially financially. So far, we haven't received any. Not a question of finance at this point for me. It is a question of, does the Secretary General really want to put the UN behind the conference fully? Which is speaking as it is, where if you perceive his problem, the problem on his side is insisting on that he has a government and all you have to do is join. you are not asking me. Yes. I'm saying how it is perceived. Yeah. You see, when I talk to him, he says, I will never go there, that it's the NSC, that is Soler, that is Ethiopia. The Ethiopians are my enemies in the West. And I know from discussions with the others that they say, the young man, he thinks he has a government, and he says, all you have to do is join my government because everything is fine. Now these are the two positions. I'm not saying it's reality, but it's how he perceives the other side and how this side perceives him. And I think that those are the issues which would need to be addressed in a little more intensive contacts between. Now we are contacting Ali Manish Group and Yes, they are talking. Yes. it seems that he is changing his mind. Yes. What is happening in Mogadishu is Ali Ghani is drawing on the climatic support of the Aboriginal. And more Aboriginal are moving away Toward this. toward peace. Let's call it toward peace, yes. And of course, ID sees this. So, not in political terms, This is but his climatic support is